Never cry for the person who hurts you. Just smile and say, "Thank you for giving me the chance to find someone better than you." Never hate jealous people. They are jealous because they think you are better than them. Don't waste your time on revenge. Those who hurt you will eventually face their own karma. Never tell anyone your plans. Show them your results instead. One great lesson I learned from my life: there is no market for your emotions. So never advertise your feelings. Just show your attitude. Don't give up. Your day will come. It's a matter of time. If you're helping someone and expecting something in return, you're doing business, not kindness. Trust means everything, but once it's broken, sorry means nothing. Always remember that your present situations are not your final destination. The best is yet to come. Never leave a true relation for few faults. Nobody is perfect, nobody is correct, and at the end, affection is always greater than perfection. Don't come to my funeral to show me how much you cared about me. Show me how much you care about me now, while I'm still alive. Never reply when you are angry. Never make a promise when you are happy. Never make a decision when you are sad. Stop expecting loyalty from people who can't even give you honesty. Life is short. Time is fast. No reply, no rewind. So enjoy every moment as it comes. Don't give up. The beginning is always the hardest. When you wish good for others, good things come back to you. This is the law of nature. Difficulties in your life do not come to destroy you, but to help you realize your hidden potential and power. If a drop of water falls in a lake, its density is lost. If it falls on a lotus leaf, it shines like a pearl. The drop is the same, but the company matters. Life is beautiful. One day, 1 hour, and 1 minute will not come again in your entire life. Avoid fights, angriness, and speak lovely to every person. Every pain gives a lesson, and every lesson changes a person. Never stop learning, because life never stops teaching. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا يقول حيران وايدين سلامين بدن كولانتي وناكسن maanta ayaan kulannay mar kale asxaabey ama mar kale ayaan wax idin soo duubay asxaabey horta waxaa jira dad aan asxaabnaho ama aan saaxiibanaha ayaa telefoon ii soo waceen waxa igu dhaheen Zainab Siman maxaad u daasay YouTube-ka bariyahan iskama daayso YouTube maxaa wax u soo dhigaynin YouTube-ka maxaa ku dhacay bay igu dhaheen haya jawaabtiina waa tan halkan aan idin ka siinay aniga YouTube ma daayin YouTube waxba kuma dhicin waxaan ma arag aan YouTube daayay malahan YouTube-kayga waan wataa maadaama wax soo dhigaynin YouTube-kayga uu socdaa wali
leen waxaa waaye sababta waxaa waaye wuxuu soo dhig waaye oo maaragta oo keentay waxaa waaye inaan anigu mashquul noqday aad iyo aadaan mashquul u noqday horta asxaabi aniga horta qof guri iska jooga ma yihi qof maanta guri iska jooga oo dhehaysin maanta qoftan guriga iska joogtaa marka qoftanayto waxaa waaye maaragtay qoftan waxaa waaye maaragtay video mar walba ay soo gelin kartaa aad dhehaysin maan asxaabe shaqadayda waa mashquul soo mashquulkaas ayaan la xiriir igu qaata in badan markaan halkaas ka soo gudubno asxaabay horta waxaa waaye barnaamij ayaan idiin soo wadaa markaan maqanyo wax khayr ayaan ku maqanya asxaabtaada u soo raadi waxyaalo badan oo ka farxiyo ama oo dhiirin geliyo oo dadka i daawanayo ama qofkii hadda ka fikray inuu YouTube furan doono oo dhiirin gelin doono ma aragtay wax oo dhiirin gelin soo duubaan leeyahay marka maanta halkan ma aragtay waxaan u soo duubay muuqaal ma soo gelinin cod baan idiin soo geliyay codkaas oo fiic oo hadda ka soo jawaabay ama jawaab idiin ka soo siinayay oo ahayd aniga YouTube madaayin okay muuqaalkayga ma soo dhigin laakiin codkayga kulay waa la socotiin waa daawanahaysiin codkayga waa dhageysanahaysiin u maleeyaa asxaabta igu xiran in badan waa mahadsantihiin aad iyo aad waa mahadsantihiin thank you very much my fans thank you very much my fans okay dadka igu cusuban oo channelkanayto daaban doono idinkana soo dhawaada marka waxaa idin kala baahan yahay inaad soo dhawaatiin videogan aad like saartiin aanad ii subscribe gareysiin videogana hala daabto hala dhameysto codkanayto hala dhageysto ana hala dhameysto okay halkaas ayaan ka soo gudubno marka kale waxaa waaye asxaabay barnaamij aan diyaarinaya barnaamij fiican ayaan soo wadaa oo maaragta aniga kale gabar kale saaxiibtay baa halka idinka tusi doonaa mar kale waan soo fadhiisan doonaa maaragta gabadhaas ay toon hadda ii weydiinina gabadha aaway la soo fadhiisan rabtay hadee oona isoo tobsiya in badan aan mashquulkayga badan inay soo tobsiistin waay gabadha sheegaysa inay soo dhahdin waay horta waa jeedaan marka gabadhaas aan isla soo duub doonaa barnaamij badan ayaan soo wadnaa midka saddexaad ana halkan idin soo gudbinaya adaan in sheeg raaw waxa waaye anigu horta safar ayaan u jeedaa safar baan u socdaa mar dhow inaan safro la arkaa halkan iyo Mombasa aado Mombasana haddaan aado maxaa waaye Mombasana haddaan aado waxaa waaye anigu waa inaan idin soo duubaa fiidiyoyo badan oo vlog waxaad fiican aad si fiican ii darangalo aad daabatiin marka insha Allah asxaab waan isla socon doonaa waan kulmi doonaa marka mar kale waan kulmi doonaa YouTube waan ku kulmi doonaa kulanka lagu sheegay waxaa waaye videoga intaan soo fadhiisto hor aan ka soo hadlo okay asxaabay marka insha Allah waan isla hadli doonaa mar kale aan soo fadhiisan doonaa ama aan soo gal doonaa igu qaata I know you are very much bored but you will be happy insha Allah ku digin boo farxi doontaa waxaan soo galiyaa horta anigu hadalka iska dhaaf comedian wanya comedian leen wali ma ay arkin anoo comedian laakiin taas way soo socoto arki doontiin waxyaalaha oo idin ka farxiyo ma aragtay igu qaata asxaabtayda igu qaata hal igu qaato insha Allah mashquulkun waaye waxaas waa u ma aragtay adduunku waa ogtiinba mashquulkun iska jiro okay marka halkaas ka soo gudubno asxaabay waxaan idin leeyahay in badan khayr ayaan idin rajaynayaa insha Allah kulanti wanaagsan again let us meet another day again guys okay like the video subscribe share and comment section anything you feel like to ask me just leave in the comment section okay bye let's meet again